بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa midnimo TV oo niso gudbinay akhbaarta guud shirka midnimo ay ka socda gobolka Gado gaar ahaan magaalada madaxda Garbaharey. Please subscribe, click the subscribe button saad u hesho mataqaana akhbaartii ugu dambeysay ay direct kugu timaado asuna ay soo baxdaba. waana mahadsantiin. magaalada madaxda gobolka Garbaharey waxa gaaray maalmin soo dhaafay wafuud kala duwan oo kamid yihiin Cabdi Shire, Engineer Xasan Coongaab iyo Colonel Cabdi Cismaan. wariyahena Muqdisho magaalada madaxda Soomaaliyeed ayaa Maxamed Cabdullaahi ayaa qadka taleefanka wuxuu kula xiriiray Engineer Xasan Coongaab oo kamid ah wafuud tagtay gobolka Gado gaar ahaan magaalada madaxda Garbaharey. hadaladiisina waxa kamid ah sidatan. halkan waa Midnimo TV. waxaa inoo suurta gashay in qadka telefoonka aan kula xiriirno Engineer Xasan Maxamed Faarax Coongaab oo ku sugan magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado isla markaana kamid ah wafdi isugu jira siyaasiyiin waxgarad iyo aqoon-yahano oo gaaray magaaladaasi si ay uga qayb galaan wajiga labaad ee shirka Midnimo oo dhawaan ka furmi doona magaalada Garbaharey. haddaba telefishinka Midnimo ayaa Engineer Xasan Coongaab qadka telefoonka ee Garbaharey kula hadlay waxaana marka ugu horeysa weydiinay bal qaabkii loogu soo dhaweeyay magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado oo hadda uu ka soconayo diyaar garowga shirka Midnimo wajigiisa labaad. marka hore Engineer Coongaab ku soo dhawow telefishinka Midnimo. anagu waxaan ahayn wafdi ka soo baxay magaalada Muqdisho. maanta waxaanu nimid caasimada gobolka Gado ee Garbaharey. waxaanu kala kulanay soo dhaweyn aad u ballaaran oo dhan kasta leh. dadkii maxaan ku raadayay garoonka nagu yimid waxaa hortacay maxaan ku raadayay maamulka gobolka, barasaabka gobolka iyo gudoomiyaha degmada iyo dhammaan qaybaha bulshada oo magaalada degmada ku nool. runtii waxay ahayd maxaan ku raadayay arrin aad iyo aad lagu farxo markii aad aragto rabitaanka dadka shacabka iyo baahida ay u qabaan in maxaan ku raadayay dadku ay ay u gobol xaalaan kana qayb qaataan inay dadku tashadaan isla yimaadaan iyagoo ogaa midnimo wan iyo maxaan ku raadayay muhiimadii iyo natiijooyinkii waxaan ku raadayay laga dhashay kana ay rajaynayaan in intaa iyo in ka badan ay ka soo bixi doonto. waxaa kaloo iyana magaalada joogay oo horay u soo geeyay muddo 2 wiil ku dhow. waftigaas oo asaguna ka mid ahaa dadkii ka qaybgali lahaa shirka Midnimo 2 Midnimo 2. waxaa kaloo ina la hilmaami karin in magaalada uu ku sugan yahay wafti kale oo heer dhaqan ah oo uu horeeyay Maxamed Xasan kaasoo asaguna week iyo wax la jira magaalada ku sugnaa. waxaasoo dhan oo iyo maxaan ku raadayay iyo wafuudaas iyo kuwo kale oo aan sugayno laba maalmood gudahooda waxay noqon doonaan dadkii shirkii Midnimo 2 ka qaybgali lahaa waxaan ku raadayay hadda uusan bilaabanin. waa gartay bal ka waran socdaalkiina iyo ahmiyadda shirkan la doonayo in wajigiisa labaad lagu qabto Garbaharey. ahmiyadda shirkan uu leeyahay walaal waxa weeyaan sababta shirkii Midnimo 1 ayaa magaalada hore uga dhacay. kana waxa weeyaan waa Midnimo 2. shirkan waxa weeyaan waa shirka waxa weeyaan beeshu ay ku tashanayso qaybo badan buu soo saaran yahay. maxaan ku raadayay ay ka mid tahay in marka hore waxa weeye shirkan lagu xalliyo dhaqanka laguna mideeyo gabi ahaan waxa weeyaan dhaqanka beeshan way leedahay. qaybta labaadna waxa uu noqon doonaa mideyntii maamulka hadda jira ka jira maxaan ku raadayay dhammaan degmooyinka gobolka. waxaa kaloo iyana meesha ku jirta qaybta saddexaad oo ah in dadkan ama maxaan ku raadayay dadka beelaha dega jubooyinka ay ka tashadaan Jubbaland iyo maxaan ku raadayay mustaqbalka. taas oo weli aan la gaarin laakiin haddaan guud ahaan ku dulmaro ajendaha iyo ujeedooyinka shirkan asaaska oo ah sidaas ayay isugu xigaan. waa gartay bal rajacaanka ayaad ka qabtaan aqoon-yahanadiinan ka qaybgalaysa shirka in wax miro dhala oo dan u ah shacabka dhammaan deegaanada Jubbaland inay ka soo baxaan. walaal waxa weeyaan rajadu aad bay u weyn tahay. wax walba ilaah waa xuma dadkuna waxa weeyaan in isku day la sameeyo. runtiina arrintaana waxa weeyaan waa aad u ballaaran oo maxaan ku raadayay dhammaan dadka deegaanka
maanta ay baahi weyn ay u qabaan iyadoo ujeedka shirkan uu yahay maxaan ku raadaaye mid nabadeed iyo mid wada tashi loogana tashanaya maxaan ku raadaaye dhammaan dadkan ku nool maxaan ku raadaaye gobolkan Gedo iyo nawaaxigan runtiina ay soo daashadeen awlaado aad u tiro badan 24 sano ee la soo dhaafay waxaan filayaa rajada ugu badan oo hadda la filayo ma garanaysaa inay meeshaan ka soo baxaan inaysan ahayn midaan hore loo soo marin waxaana aad iyo aad ugu rajo weynahay in shirkaan uu miro dhal ballaaran uu dhali doono isaga oo bays uu yahay marka hore midaynta waxa weeyaan dhaqanka oo aan helno inay tahay furihii u horeeyay oo maxaan ku raadayay deegaankan nabadeyn iyo dib u heshiisiin ay u dhalan lahayd furaha labaadna waxa weeyaan khilaafka iyo muranka maxaan ku raadayay ku saabsan jubooyinka iyo qaabkii magaranaysaa si wadajira magaranaysaa looga tashan lahaa in marka hore waxa weeyaan lagu saleeyo deegaanka khaasatan waxa weeye caafimaadka gobolka markaa kadibna magaranaysaa Jubbaland iyo wixii beeshaan ka maqan magaranaysaa ay si wadajira u raadsato waa gartay injineer xasan maxamed faarax Coongaab hadda waxaa muuqanaysa in deegaanada Jubba maamulkan ku meel gaarka ah ee ka jira aanan lagu wada qanacsaneyn oo heshiis aanan lagu wada ahayn waxaa muuqanaysa caqabado badan iyo khilaafyo dhowr oo jubbooyinka iyo Gedo ka taagan oo maamulkaas dartiisa shirkan Google xaar ma u noqon karaa xalinta waxyaabaha soo idil shirkan weeyaan sidii sidaan arkay shirnaaleed waxa weeyaan waa shir lagu xalinayo khilaafaadka dhan kasta haday noqon lahayd mid dhaqan iyo haday noqon lahayd mid siyaasadeed intaba waxaana waxa weeyaan beesha iyo magaranaysaa dadka ka qaybgalayaasha shirkan ay sababaan u yihiin khilaafka hadda meesha uu marayo waxaad ogtahay waxa weeyaan gobolka Gedo waxa uu ka mid yahay Jubbaland maxaan ku raadayay Jubbalandna haddeetan maamulkii ku meel gaarka waqtigiisii waxa weeyaan waqti hadda gabaabsi ayuu ku socdaa in beeshaan marka ay waxa weeyaan Jubbaland ay amniyadii iyo maxaan ku raadayay muhiimadii ay ku lahayd ay uga qayb qaadato si dhammaystiran waa midda asalka u ah asaaska shirkan taas ayaana maxaan ku raadayay ku rajo